صار مسجد ما تسوي بوليس لكن مكتبه وياه طبعا كيرس مكتبه ستوكهولم waxaan ku wariyay suugaan gabayaan oo markaas ah kuwa aan u alifay gabayada ilaa waqtiga waxaan alifay dabcan waa buugaagta gabay badan oo kale ka dambeeyay way jiraan laakiin haddaan tusaalayaal idinka soo qaato gabayada ku dhex jira kuwan u jeclahay wax kamid gabaygaas oo aan doonayaa idinla wadaago run ahaantii laba gabay baan jeclaysta buugga ku jira inaan idinla wadaago laakiin waa gabayo badan oo soddoniyaaba ku jira buuggaas qudhiisu ardayna waan waqtigaas siyaasadda dhigan jiray magaalada Uumiyo jaamacadda Uumiyo markaas waxaan markaa ka fikirayay sida haddii aan anagu waddankan qiimeynaya markasta wali wax ku xidhan kasoo qorbo joog baan in badan joogay haddana waddankan marwalba ku xidhnaa hadda saan anigu wuxuu qaabayn lahaa marka wuxuu leeyahay gabaygani haddaan anigu qaabayn lahaa dunida qeybteenna qaxar iyo dhibaatiyo malaa qulub ma joogeen qalalaase iyo may jireen qayla dhaantaniya qabqab dhaafay waagii baryaba qiiq ma huriyeene qabiil laguma dhaateen dal aan qaadigii ahay haddaan anigu qaabayn lahaa dunida qeybteenna qowlaysatiyo tuug dhulkii kama qadhaabteene intii kalena qaansiya hangool weli ma qaateene biyuu qaniyad weeye haraad lalama qaadheene qorraxdii duntaba meel madow lama quluusheene qubanay dhasheenii darxumo uma qisaasmeene qoridiya kamay saahideen qalin tacliineede qarqaryada habeenkii gidaar qabow ma seexdeene quustiyo waxaan biin lahaa qoomamadan baas haddaan anigu qaabayn lahaa dunida qeybteenna qoqobiyo kumaan kala xidheen qaadhka naylaha ah qaraamiga jacaylkaba naftaan la isu quudhaaye qulubtaan isugu beeri lahaa hays qadariyeen qaynuunka lama baalmareen qaabka uu yahay qodobada distoorka ah sidii qaalib lagu doorto qabsoo qowlka eebiyo sunnaha lama khilaafeene qalad waayi maayee haddaan marar qallooc yeesho wixii qoonaheen falay nin kale kuma qataareeni qirashaan ka doorbidi lahaa qarintu waa ceeb طبعا سياسة ذات القطامة سوما هذان أنيقو قابين لها دوني قيبتين قسندية هذان هين لها قرن كمال كيسة قال يكمان يبسدين قاع عبوري قدركما أروستين هنتذا قرن كليين تذكوا وذا قدودية أنيقو قرص مهيجين لبس قروح لكما حاويين قاوان توبضاني قصري كما دحتوسان سرير قايا اللور ديغاية أفمي شارنا وما قيبيين قانت آدمي بل سوق استيقا عن ربان سوق دمي لاي قاعدة هوري قوليها باهم بانقود كسيمي لاي قبك قاول إيا قويس كآن هيسان قولو سيحدو أيان دبوغو قارامين لا نرش قيب تاسي قاعدة كلا قضال كيرو كان قيمة قليل لاي قاعدة كلا مال قروح له قادر إنسي قال مي هي غيسامي هي ديبيدا قوقاية أيان نمان قشو صور ركبا قرش كسين لاي قاعدة كلا وشدا قاليا سوق تمين لاي قاقين قرصي هوري أما قرر لسوق عفتو قروح دي قبكية موندا سوقية هلاي قرون لغو هرتية السوق مركا قرن سلمان تاقين سوحي ركلا وقربي قلت كيما دور كما يقول هذا طرم الحاقين كم إذا قبيل كتير بوغاس ولا يلاحظوا شربتها الأور كما يلاحظوا اللي يقصوا بمايو وحاطون تقول لي anigoo waxaa dhintay ninkii la Sheikh Said bin Sultan Imaaraadka dadna waxaan daawanayay sida geeridiisii ay askartu ugu markaa maartay wuxuu siisay ugu dabaaltigiis waxay soo baxay sawir aad aan uga naxay oo in adoon si dadku ay ku si aad moodeen dadka adoon iyo qof dhintay ay markaa maartay sameynayeen oo qaab darra markaas waxay u soo dhacday xagga fikirkana la iga sugi maayo arrimo aan iga suurtagal ahayn طبعا أنا واكين سحتها وحنا كملها Soomaaliya qodobo aan layga sugahaynin oo aan ka saahiday ayaan saaka qorayaay sida igu ogsoonaada waa siriya caadkeedi ta koobaad dharku siinad weeyaan ilaah siiyey aadmige waa saanad dhaxankaa dugsida siiga iyo boodhe waa suurad laynagu gartiya sawrac dhaqameede marra waa sitriga cawrad iyo sax iyo muuqaale waa waxaynu kaga soocannahay soofka xoolaha ha yeeshee wixii soconayaba qaar sitaa jire
sancadii timaadaba anaan saarku ii qabane inaan qoorta sudhatay sidii saancadaha gaalo oo aan sidaa sharaf ka daya layga sugi maayo. Sabankan aan joogno sur la dhiibsho sawdkoo dallacan socodka oo giigsan sidiciyada xumaday mutaan safisutaagooda iyaguba sarkaal jaahilay sanam ka yeeshaane in sidooda aan falo wallee layga sugi maayo. ruux kula sinjiya diin ah oo kula ah Soomaali oo aan wax lagu sooci karo sinaba loo haynin oo waa sab weeyaan la yidhi laga santaagayo waa sawrac laynagu gartiyo dhaqan siloonaani softaraan habowgaas inaan qiil u daya saaka oo aan sidiqadaa kilow layga sugi maayo. nin kastaba sid baa lagu dhaliya tira sagaalaade waxaa saamigayga ah inaan kula sinaadaaye adna inaan sarreynka aqbalo layga sugi maayo. laakiin waxaa dabcan beedaka ay Soomaalidu ku xadgudubtay ama yeesto nin ka mid odayaashooda ka mid ahaa laga unkamay xaawo iyo aadan saracooda seeskaliya weeyaan dad aan saxaris dheerayne kala suurad iyo luqadu waa sire ilaahay sabab maaha qaarkoodba qaar kaga sidroonyiine ha yeeshee dar ay seegtay oo saas qabaa jire saf inaan la soo galo kuwaa layga sugi maayo. waa cunsuriyiintoy iyo dadka markaa dadka u kala saarayna kala sinjiyadadiina surimada hawaasiya markaan adari suureeyo sabawacan garduuriya ilaa tan iyo siidaamo marka aan siyalow fiirsadiyo suhdimaha dhowley ama cali sabiixiyo ashica sax uga faalloodo ayaan sirin sirqooda nin ciilsaaqay baan ahay sifahay gumaystuhu damcaan laygu socodsiiye Soomaali kala qaybinteedu waa kuwaa sugaye balse inaan sahaalow aqbala layga sugi maayo. nabad baa sareedi waan joojinaya gabay bugigii kale ku xigay waa buga kan yaalla oo su-aal iyo jawaab ah oo ku saabsan dahaarada oo markaa 260 waa fiqri weeye 220 su-aalood iyo jawaabooda kooban weeye. asla waxaan ugu talagalay markii ugu horreysay dhalinyarta ayaanada uga shaqayn jiray waddankan yaryara waddankan ku koray marka hore wuxuu baran waayeen dabeedna waxaan ku tijaabinay ciidanka mucaawadaha u dhigaynay in bal waxaa loo dhigay su-aal iyo jawaab loogu rogo dabeedna bugaas taariikhda muslimka 220 su-aalooda ayaan nadaafadii nijaastii maydhashadii weysaysashadii iyo wixii la halmaalay uga sheekay 220 su-aalood kaasaa ku xigay caqiidada islaamka sugan arkaanul iimaankii oo sugan su-aal iyo jawaab 246 su-aalood wey. labada kitaab waxay isku qaatay 500 su-aalood oo dhow oo marka dahaaradii iyo weeyaan marka maaragtay iyo caqiidada ama arkaanul iimaankiya buuggan waxaa la isagana qisada al-ittixaad iyo Cabdullaahi Yuusuf goobjooga la yiraahdaa waa qisho sheeko ah ku dhisan dhacdo dhacday 92 ka dhacday gobolada bariga Soomaaliya laakiin waxaa loo sheekanaya sheeko ahaan inkastoo waa aragnimo qisada ku hayso buuggan hableena la yiraahdaa waa suugaan gabigiisuba lagu horeeyay suugaantii Soomaalidii hore sidii haweenka Soomaaliyeed ay dumarku ay gabayaaga Soomaaliyeed uga hadleen ha amaaneen hala dardaarmeen hawaaniyeen jacayl ha u bandhigeen guur ma sheegteen waxaa soo hadda leeyahay ama canaanteen xiita hableena la yiraahdaa magaca buuga dhamaxween sidee buu hableena hala ugu tilmaamay buug weyn weeye dabcan buugaygaas buuga xidha aan oo yahay baabka xidha kumiistayaashii Soomaalida qabsaday iyo suugaantii lagula diriray ay buug bilownay Sheekh Axmed Gabiyo gobolka Soomaaliya dhexda ku noolaan jiray ugu horreeyay waqtiga Talyaaniga ilaa iyo soo gaarsiinay waqtiyada xorriyadda la qaadanayay baas ninkan soo qaatay baas sarci Maxamed Ismaaciil baas sarci gabigiisii baan u doortay ciwaanka uga dhigo laakiin buugiisa kama hadlayo waxaan rabi lahaa markii hore waqtiga iga dhacay inaan gabayada qaarkood soo qaato sida gabayada xaajada qalooc ama mid qof kale nasiibkii midun laakiin nasiib darro waqtigii baan jiray hadaan kusoo noqon karno kusoo noqon kitaabkaas baa sida kutubtada ka mid ah facarabi uu ku qoran yahay waa saxiix al-amthal min xadiis sayyid al-anam ana hooyaan xadiisyada nabiga calayhi salaatu wasalaam ee hadana macmaaha amaba mithalka tusaalayaasha oo tusaale macallin adduunka Soomaaliya macallinka ugu fiicnaa buu ahaa wax fahansiin karna aaday wuxuu isticmaali jiray habab kala duwan oo qofka wax kaga dhacdhiganay hadday noqonayso tilmaan hadday noqonayso mithal hadday noqonayso inuu dhulka wax sawir u sameeyo xataa فشحن عجيب جيمو جاغل الاستعمال اللي روح النبي وحو سوري جري كواسو كان كسوري وعين كاسو حتى النبي استعمال جري نوع مسرحيات او كلام كامل هذا عشان حديث عجيب كان عسرين كجرا ويمان يملك الجبريل ويمان النبي جو جلبا قبسنايو واسكا دغين رباديا غرمس جيدون maxay حب مسرحيات oo kale oo النبي wadoni in dadku ay ku fahmaan diinta islaamka
بوجا أمثاش النوع عصبة كسوري أمثاش استخدم فانتقال كمية سوقاته وحكمل كان نقول لي الصلاة الدنيا إنه مثله محوري كورنا هديمت كين وبي أكيد ظهر مرة أو ما أنت شن شرف ما ميو أسكت كحرية ما يبي لهدي سيدا السوق أنا قف كشنت الصلاة تقدر تدي كحرية ما تصل ومع مثل بربرني بالله بوجا كاس الله هذا زمان الاستيت الحديث بقول هو صحيحة فمثال هو كله وهو تشكيل طبعا وحليه الكلام وسيد هذا سري فيديو أما بسمالي بوكس هو لكن سومالي كان قري انتو ده بدن كان يعلم عفوا كحوم وقت غير غير الدلالة لكن الحمد لله مكان برشلونة aad buu u mahadsan yahay Maxamed Xirsi Cabdi Bashiir gabayga qeyraha badnaay oo inoo aqriyay iyo waliba buwaabti oo inooga sheekeeyay quruxda badnaay dabcan macluumaadka oo qoray kulli halkan kuma soo koobi kara laakiin buwaabti halka bay yaalaan qofkii u baahdo wuxuu qaadan karaa buugga si uu u aqristo waqti kale marka waxaan rabaa inaan u yeero